madaxweynaha Jubbaland oo ka qayb galay shirkii madasha Muqdisho ayaa waxa uu tagay magaalada Kismaayo. warkaasi waxa Kismaayo ka soo diray wariyaheena Saabir Cabdiqaadir Honesty. shirarkii maamul goboleedyada xubnaha ka ah dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladda federaalka Soomaaliya uga soconayay magaalada Muqdisho isla markaasina lagu soo gabagabeeyay isla magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya. waxa maanta magaalada Kismaayo dib ugu soo laabtay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa markii uu gogada diyaaradaha ee magaalada Kismaayo soo gaaray waxa halkaas ku soo dhaweeyay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ugu sarreeya maamulka Jubbaland iyo xubnaha labada gole ee maamulka. salaan iyo soo dhaweyn kadib madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa howlka nasashada ee garoonka diyaaradaha warbaahinta kula hadlay waxaana uu ka warbixiyay shirkii ka soconayay magaalada Muqdisho ee lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho ee u dhaxeeyay maamul goboleedyada xubnaha ka ah dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladda federaalka Soomaaliya waxyaabihii lagu heshiiyay isagoo madaxweynaha Jubbaland hoosta ka xariiqay in dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada xubnaha ka ah dawladda federaalka Soomaaliya ay ku heshiiyeen in ay iska kaashadaan la dagaalanka ururka Al-Shabaab. aad baan uga mahadcelinayaa gudahaan dadkiina soo dhoweeyay xarunta iyo xildhibaanada iyo wasiirada Jubbaland waxaan ugu maqlay safar shaqo magaalada Muqdisho oo ahayd wadaacada ay ahayd inay mas-uuliyiinta Soomaaliya ka tashato xaaladda waddanka uu marayo uguna horeysa howlgallada iyo sidii shabaab deegaanka looga xoreyn lahaa iyo sidii loo ilaalin lahaa muwaafaqada iyo midnimada waddanka wixii khilaafaad ay jireen in gaar xal Soomaaliyeed waxaan oran karaa shirkaas oo ka dambeeyay guusha Kismaayo la dhigay ee hore waxaa ku dhamaaday si guud ah nidaamka shirkaas wuxuu ahaa guul ah maantana waxaan aad ugu faraxsanahay inaan sugayno madax badan oo baarlamaanada labada aqal oo ay doontaan golaha baarlamaanka Jubbaland waqtigiisa hadda laakiin guulahaan shirkaas wuxuu ahaa shir la dhalay oo guula shaqooyin badan oo kala soo qabanay waxaa ka mid ahaa kala arrimihii amniga iyo tallaabooyin hore loo qaadayo olole loogu magac daray ku aadanaa sidii hadda looga jawaabi lahaa dhacdooyinka hadda u dambeeyey Muqdisho ka dhacay kii Afrika Oktoobar iyo kii Soomaaliya 18kii bisha intaasoo dhan insha Allah waxaan rajeynayaa inay wax taariikh kale noqon doonto Soomaalidana ay wax badan ka baran doonaan howlgalkaas maanta midaykiisa la arki doono insha Allah salaam madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ma cayimin xilliga sida rasmiga ah ay u wada qaadi doonaan howlgallada ka dhanka ah ururka Al-Shabaab. Saabir Cabdiqaadir Honesty telefishinka Soomaali Cable Kismaayo.